الصومالية يحرك كله إدار كودا جسر إنا نوفل يا مردا مدحنا أكسران إنا نهيجن يكاسان ونهضو دفاع يا ورمرينتا قرنك الصومالية إنا كودغمو شرف إيران يهرب وقت نبلات يا وقت علالات إنا حفظه وحلالي بدي سرعي منا إنا أنا وحبه ولك لهاي دلال يا كبتي سيدان هو دوري لها بيلالا يا ديا هبكا قلبكا يا راوينك كله اللي يوامني Doğru. Geliyor bu vatanı canından çok sevenler, atalarına, yurduna gönül verenler. Geliyor bu millet için. waxaa soo gelaya ciidan Soomaaliyeed oo leh wadnihii libaaxa. Geliyor bir görkemle geleceğin Somali ordusu. Kendine güvenen sert adımlarla, dalga dalga, gök mavisi bir bayrakla. kalsoon nafahooda waxaa soo gelaya kuwa wata calanka buluugga ah ee babaraya soo gelaya kuwii taariikhda qori lahaa lagana qori lahaa waxaa soo gelaya kuwii carshiga magacooda ku xusi lahaa waxaa soo gelaya kuwii cadowga iyo saraakiisha Turkiga ka soo qaybgalayaasha munaasabadan qiimaha badan dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii waxaan bogaadin iyo farxad loo ah inaan ka soo qaybgalno maarinta ururka 10aad ee ciidanka Gorgor. waxaan noogu filan laba halkan laga soo jeediyo oo miduna ahayd dhaarta erayadii ku jiray miduna ahaa gabaygii erayada ku jiray ee uu tiriyay abwaanka Soomaaliyeed. haddii qodob loo istaago loogu dul istaago labadaas midda dhaarta iyo midda gabaygaba ayadaa noogu filan maanta khudbad iyo casharba. haddii aan wax yar ka tilmaamo dowladda Turkiga gaar ahaan dhinaca ciidanka iyo guud ahaanba waxaan rabaa inaan wax yar u sheego. nin ka tirsan dowladaha Western-ka ayaa ila kulmay oo dadka ciidamada caawiya ah wuxuu igu yiri maxaad u jeceshihiin oo shacabka Soomaaliyeed u jecel yihiin dowladda Turkiga. annaga markii aan dadka Soomaaliyeed noogu yimaadeen wadamadayadii waa dejinay sharci baan siinay guryaan siinay lacag baan siinay waxbarashaan siinay caafimaad baan siinay haddana waxaad naga jeceshihiin dowladda Turkiga maxaa dhacay buu yiri. waxaan ugu jawaabay sida tan adinku waa runtiin waana mahadsantihiin wixii aad na siiseen laakiin dowladda Turkigu waxay noo soo gurmatay
oo ra-iisul wasaaraheedii uu yimid Soomaaliya xilli Soomaaliya ay aad u dhibaataysnayd colaad iyo gaajo iyo abaarba ayna haysay ayuu adduunka oo dhanna tusay noona soo gurmaday dowladda Turkiga ay noo soo gurmadeen midda labaad waxay noo sameeyeen base iyo kulliyad iyo tababar ciidan ayay noo sameeyeen midda saddexaad labada calan haddaad fiiriso labaduba kalarku waa kala duwanaadeen waa min hal kalar adduunyada calamadeeda inta badan kalaro badan bay isugu jiraan hal xidigna waa ku wada sawiran yihiin oo 5 geesa wax badan oo walaaltinimada islaamnimadu ay dheer tahayna way noo weheliyaan laakiin dowladda islaam ah ayaanu ka jecel lahay dowladda Turkiga waxaan rabaa inaan iraahdo dowladda Turkiga khaasatan qaybta ciidamada ee tababarkana siiya aad baad u mahadsantihiin tababarkiina waa u baahannahay weli baahida amnigu waana haysaa waxaan jecel lahay inaad sidaas iyo si ka badanba aad u sii dardargelisaan oo loogu wadaan ciidanka tababartay ee maanta dhaartay waxaa guul idiin ah annagana noo ah inaad ku soo biirteen xoogga dalka Soomaaliyeed hortayada ku dhaarataan waxaan idinkula dardaarmahayaa inaad tababar adag soo qaadataan dishibiliinkiina adkaysaan wadaniyadda adkaysaan qabyaaladda ka tanasushaan markii la idin soo qorahayay qof qabyaalad lagu soo qoray idinkuma jiro war soo saas maahan Soomaalida waa la idinku qoray saf baa la idinka qoray waxaad difaacaysaanna waa dalkiina iyo dadkiina marka koowaad ilaahay aqoonsada marka labaad tababarka soo qaata marka saddexaad dishibiliinka iyo akhlaaqda iyo askarinimada hagaajiya marka ugu dambaysa ama ugu horeysaba wadaniyadda iyo Soomaalinimada qalbiga ha idinka qoraato waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inaan u sheego maanta Soomaaliya dowladaha waxay moodaan 10 sano ka hor Soomaaliya meeshii ay marayso inay marayso Soomaaliya maanta waxay haysataa ciidan Soomaaliyeed oo xuduudaheeda difaaci kara waana kuwa hortiin taagan oo maanta dhaartay soo diyaar uma yihiin xuduudda Soomaaliya meel kasta ay ku tahay inaad difaacdaan adawgii soo hunguriyaysta waddanka Soomaaliya nimcadiisa barwaaqadiisa xeebihiisa iyo xuduudihiisa soo ka difaaci maysaan Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato waxaan dowladda Turkiga ha noolaato waxaan mar labaad u celinayaa mahadcelin saraakiishii ciidankan tababarkeeda gacanta naga siisay ee ka qayb qaadatay waa mahadsantihiin adinkuna waa mahadsantihiin inta xafladda ka soo qashqashana waxaan leeyahay aad baan idinku faraxsanahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa soo gudbaya dadkii geesinimada iyo halyeynimada waxaa soo gudbaya tooskii midnimada iyo wadajirka waxaa soo gudbaya ciidan Soomaaliyeed oo Geçiyor Somali'de tarih yazacak genç askerler yürekleri kartal gibi genç yiğitler geçiyor
bu millet için şanla, şerefle mücadele edenler. Aslan yürekli Somalili askerler. waxaa soo gudbaya kuwii naftooda ka jeclaa qarankan waxaa soo gudbaya kuwii awoowayaashood iyo dhulkooda hooyo u hibeeyey qulubtooda waxaa soo gudbaya kuwii shacabkooda dartiis si sharaf iyo ixtiraam leh ugu dadaalay waxaa soo gudbaya ciidan Soomaaliyeed oo leh wadnihii libaaxa. Geçiyor bir görkemli Somali ordusu. Baş yüksekte, vücutlik, gözler mağrur. waxaa soo gudbaya dhallinyaradii taariikhda ka qori lahaa Soomaaliya waxaa soo gudbaya geesiyaasha